بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada Talaabo Tech Blues. maanta waxaan idin soo gudbin doonaa casharkii saddexaad oo taxanaha oo ka mid ah casharada aynu ku baran doono CMD. casharka saddexaad maanta wuxuu ku saabsan yahay sida useradii aynu sameynay casharkan ku horeeyay aad uga xanibi karto waqtiga qaar, sida waalidku inuu carruurtiisa ka kaantaroolo kombiyuutarka isagoo waqtiyada qaarna u oggolaanaya waqtiyada qaarna ka xanibaya. haddaba markaaynu doonayno user aynu ka xanibno waqtiga qaar, xaggaynu tegaynaa. marka u horeysa waxaynu soo kicisanaynaa daaqadda CMD inagoo kusoo kicinaynaa as administrator. marka labaadna waxaynu qoraynaa let user iyo userka magaciisa aad doonaysid inaad ka xanibto waqtiga qaar. kasoo qaad anigu waxaan userka aan ka xanibaya waxaweye user aan u bixiyey alaabtii samaysan waa ku dhufanayaa. xog buu naga siinayaa marka userka cabdi userka magaciisu waa cabdi, full namekiisuna waa cabdi cali axmed. log on hours alone, halkaasna maanta wada leenahay waxa weeye saacadaha uu geli karo userkaas inuu soo geli karo. halkan waxa weeye halkaas ayaynu xadidaynaa oo aynu ka dhiganaa waqti gaar ah inagoo qorayna. marka u horeysa markaad doonaysid inaad intaas saxdid adigoo aan waxba intaad ka noqoto aan haddana dib u soo kicin, waxaad qoraysaa CLS. waa markaad doonaysid intaas saxdid interbaad ku qoraysaa halkaas ku geynaya. waxaad qoraysaa net user habdi, kadib calaamadaas tahay laba dhibcood. marka waxaad bilaabaysaa waqtigii aad doonaysa inaad u ogolaatid inuu soo galo userkani. anigu waxaan u ogolaayo keliya Sunday, maalinta axadda. ayaad qoraysaa marka waqtigii saacadii baad bilaabaysaa 4 AM waa 4 subaxnimo ilaa iyo 8 PM 8 habeenimo. waa maalin keliya. haddaynu doonayno maalmo kale kusii darsano, waxaad samaynaysaa waad qoraysaa calaamadaasaad qoraysaa. kadib waxaan Monday, maalinta isniintana kooma saacadaha loo qoray waxa weeye 9 subaxnimo 9 AM ilaa iyo 12 habeenimo PM. maalinta jimcaha oo kale calaamadaas qoraysaa horta marka hore Friday, maalinta jimcaha waxaan u ogolahay 8 subaxnimo ilaa iyo 12 duhurnimo. intaa baan ku fadhiyaa. walaynu eegno halkii oolka ahayd waxa iska bedelay net user iyo habdiyo magaca userka interbaad ku dhufanaysaa. saad wada jeedaanba log on hours alone waa saacadaha loo ogol yahay userkan cabdi layidhaaho inuu soo galo kombiyuutarkeeda. waxa weeye maalinta axadda 4 subaxnimo ilaa iyo 8 habeenimo. maalinta khamiista 9 subaxnimo ilaa iyo 12 habeenimo. maalinta jimcaha 8 subaxnimo ilaa 12 duhurnimo. marka waxaynu sameynaynaa bal ayaamaha aynu qoray inaynu qorno si shortcut CLS taabo iska saxintaas sare
descriptionka videoga. maalinta sabtiga oo kale waxaad u qoraysaa s keliya. maalinta axadda waxaad u qori kartaa sunday, waa SUU baa loo qorayaa. maalinta isniinta m baa loo qorayaa monday. maalinta salaasadana TAU oo Tuesday. maalinta arbacadana W keliya loo qorayaa, W only oo ah Wednesday. maalinta khamiistana waxaa loo qorayaa TH oo ah Thursday. maalinta jimcahana waa F keliya. aynu eegno markaa, waxaynu ka soo qaadanaa sabtida waa S. maalinta sabtida waxaan loo ogolahay 1:00 habeenimo ilaa iyo 5 galabnimo 5 PM. marka calaamadaas oo qoraysaa. maalinta isniinta, maalinta waxaan leeyahay axaddana waa Sunday, SUU baa qoraysaa kooma. waxaan ogolahay 7 subaxnimo ilaa iyo 7 habeenimo. calaamadaasaad qoraysaa markaad maalin kale u gudbaysid. maalinta isniinta oo ah Monday m baad qoraysaa kooma, kadib saacadii baad qoraysaa 8 subaxnimo ilaa iyo 9 ka fogaan maalinta salaasada oo kale waxaan leeyahay uma ogolidba, waad isaga tegaysaa markaanad u ogolaan inuu soo galo maalinta arbacada ayuu ku xigsiinaya oo ah W aan usoo qaabinayo. kooma 4 subaxnimo ilaa iyo 4 habeenimo 4 PM ama 4 galabnimo, 4 subaxnimo ilaa 4 galabnimo. maalinta khamiistana iska daa. iyo arbacada iyo jimcahana F baad soo gaaminaysaa, calaamada qor F baad qoraysaa. markaa maalinta jimcaha waa Friday, kadib kooma saacadii baad oranaysaa 7 subaxnimo oo kale kasoo cod tusaalahaan 7 PM ilaa iyo 11 duhurnimo AM. inta baad ku filaysaa. markaa walaynu eegna hadda waxa isbedelay. waxaad qoraysaa abdi, inta baad ku filaysaa. markaa waad aragtaan log on hours waa ayaamaha loo ogol yahay inuu soo galo. waxa weeye maalinta isniinta iyo maalinta axadda baan leeyahay. isniinta salaasada meesha ka baxday oo aynaan ogolan, iyo maalinta khamiista, labada ayaamood ayaan ka joojiyey. markaan doonaya haddaba inaan u wada ogolaado ayaamaha oo dhan userka, maxaan qoraya waxay amarkaan qoraya. waxa weeye user, kadib userka magaciisaad qoraysaa oo ah abdi /time ayaad qoraysaa. ama kadib markaad doonaysa inaad u ogolaatid ayaamaha oo dhan waxaad qoraysaa all oo kaliya taabanaysaa. inter baad ku filaysaa. aynu eegna haddaba baad ku filaysaa. waad aragtaa sidii horey kusoo noqotay log on hours ama saacadaha loo ogolyahay inuu userkaas soo galo. waa ayaamaha oo dhan, waqti xadidan maaha. markaa maanta waxaynu dhiganay casharka aadka muhiimka. waxaana muhiim u sii yahay waalidku inay ka koontaroolaan carruurtooda kombiyuutarka saacadaha ay ku jiraan, iyagoo ogolaanaya oo keliya ayaamahay iskuulka ka fasaxayay ama ayaamahay fiigayay. ayaamaha kale ay waxbarashada leeyihiinna ay ka xanibayaan. waalidku keliya maahay, adiga qudraadu haddii kombiyuutarkaaga usaro kale ay kula isticmaalaan way
inaad waqti u samaysaa ama waqtina aad ka xidhaa aanay geli karin, oo markaa aad kantarooshaa computerkaaga in intaas waxaa maanta ku egyahay. intood ku mahadsantihiin daawashadiina salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. in sii gudbi videogan si dadka kale uga faa'iidaystaan. subscribe haddaad nagu cusub tahay. waad mahadsantihiin.